Wasaradda Haweenka Iyo Xuquuqul Insaanka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maalintii saddexaad kulantood wadaagayaan qabatay hanraabto walbaradii oo kanool degmada Xudur kulankii ku hadalay sidii hanraabtan ku qayb qaadan lahaayeen siyaasadda dalka. kulanka geekiyay baa ku qayb galay gudoomiyaha degmada Xudur Mudane Maxamed Macalin Ahmed, gudoomiyaha haweenka gobolka Bakool Faadimo Samaan, gudoomiyaha haweenka degmada Xudur Faami Ibdiraan, odayaalka dhaqanka iyo hanraabku shal socotay ururada bulshada qeybaha shirkadiisan. Ankoran kulanka baa ku hadalay gudoomiyaha degmada Xudur Macalin Ahmed usoona ka dheeraaday awoodsiyo ka hanraabta usoona sheegay in caqabad ku teeganta maamulkii golaha deegaanka degmada Xudur oo balaan laan la dhasay. marka wali baahan sempre un reer Bakool haduuna waxyaalaha oo dadka ku duugnaa ba kuma ani gabdho maana haw jol lahaan badan aan ogolaadan waxyaalaha oo dadka kala deegaamada kala ku duugnaa kuma dadka armoya wali baahan odayaalka iyo culimada iyo dhammaan dadka reegeen ka baraarugan gabdho ni haw jol si idrooleyme haw jol idrooleyme maana je dilay ruwaan maana wili banya aniyo hawjoli lasi shaqo meeliyo kulay lasi homtoli lasi li ogolaad badana wada suurtagal naga teete sanadkan lama sano muddat markan wala dhamaan bariyaala dhamaan maamulka degmada Lisay Xudur wayba dhiiday in qof balaanay bilinka dal hal qof balaanay bilin kulliya dhiiday waxyaalaha adduunyada ambaare soo kumada markas lanka kooban raw waat balaan 20 hubnaad oo maamulaan tafadheede حفيزنا فديه هالجبر ما كلها جرت ويراون إني أمبارح كمدته ويراون معنا ويلب شغب بدنوات معنا ديانكني أقول هذا فدي لما بلا مزمس هالقب بلانه درتين يوم خير جرت وديان من نور ترن لهذا فدي أرنتيه ما يسببناها إلى سببنا لكن سبب تزوج كله وديارك تتكهراء كله حقوق يبقى كلونكي سيابي شرقديسون كهذلين caqabadooyinka hanraabto ku haysadantay ku qayb qaadaan siyaasadda dalka mar hanraabto dhinaca la weydiiyay caqabado ku haysadantay ku qayb qaadaan siyaasadda dalka yama ba ka jawaabeen sidatan inag bal yarta macruuf ah tagay Soomaali balaanta suuq hawada galay idmarod dalaat wal dadka bershay oo hataneen dan lahayne oo diigayeen ku wadane walinka marmar sooday maraa idroogo laga tala galiyay wadi gudaad inta qortay saasariyo islaantiisna usan qaadana banaanka qoyti hatta suuq leega shaqaysa yalla in shaqayas shaqada madan suuq yahan galaas balaamay tiraabti muqaayahan bati aba dhul gadahan bati aba jaad gadahan bati aba meheradiya madaas leeta suuq in la baxmeelashan bahay oo kale hooydaas oo harta een oo balaanga oo la seelay balaanga ay jagasi diinta mu ogolay tiitis firaabadkii batay waliyahan shaqayta oo ka hooyaasay tan jagadan baasantii leeyna madayta كرسي لهم فده سيان شغلهم بهاس صلاة الإسلام تسمى صلاة تكداسيان كدنبويت مدي هاب هتوك تجل مدي يعرف بحني سكتوسي دي سوق هم يعني شان كبات أقول إسك أرجعين كبيسود دال بستيس يصير نجي كجبه ده يعني نجي كجبه ده سلاي بس أرجعين أو ملنيس كويل ما اللي لا بلانه كانوا أول سيوم بيه يسوي بالله ده كي هتي إسلام تيان هم على سي دي تسويس كشي هاي تبالله بلان دين تيدام أقول يسوي بدي كبيلة دي ده هو جه هبطة إيه وصار كبوي دي هاي taasay sorban ku jibaabiyo la ilaahay wal makin haysta arim la walba la qabsitay kiranta mas'uul naga shana ma kiran jibaabta satay balaa imegal ma kiran marka megalka saaska danda odan wali gabe balaanta saas isku reebay balaanta madii hore guriyaaga iyo shareed may ogol macnaha jagayalka bersho may ogol muddo dheegi haane isku ku dhiifiyahay wali in sheegay balaantana saasan ka dhiifateena jaga wala siin ogol ilaahay shaqaysada dhaqada sagari beelu musulunta atabalan ki mangisha ijarmay beelu surmay male ki banaanka roos dabal meel guruka naska dabal banaanka naka iska dabal ilaahay nu qabsay wali haquuqeeda lataan qofan in dhaafto miglan in dhaafto aysaasiin qabsi dhaweydii qaad markoo roob garbasaar ku wadad lamadi xilbaaran naga toon garbasaar qaadaas laakiin lamadi horoob idintii ku tarbiyaysanaaye xijaabtay wadadi jagaha li hajay xijaabtay min gabaw qofku mid horeba asturnaas isla soo asturin la ummadna wala qobada hoolisna wadade qofka garbasaarka wadado halaaway hal garbasaar wal mahalayo boqolaal xijaabada waan halawsan boqolaal garbasaar waan bilaa fayl oo diintru meelin ku dhihayne wal ilaahay farilay farto odayaalka dhaqanka oo haayeen haan inta badan la ka eedayo liidow ku hanraabta fadaayan intii ku qayb qaadaan siyaasadda dalka iyo dhinacyada fikri shirgadiisan ku qabi
sidoo hata maamulka iyo siyaasadda iyo ku qaybgaadowka iyo hata howlwiin ku hayta iyo sidoo iyo infadaasi hobat sila eriyaba taagrin helana taawayay marka hata madan dadka wal isku gorode balaanta ma liidowka liidani wali haytay migirka i balaanta idda oo imadaas iskala dhaladan iskala rooganba maljimaayano haje maljimaayano leyla eraay saas leyla eraay man saas man liidan qaabka madan wala lahan hulaw lambaho baada hubantaga leta awood qiibsiga la er ma eraayana yo jaahil min iyo nay walba ku haate an balang mahay doas may ka koytay lanka megalke oo qabiilkan ku gal qabiilka muruge sa balaamaytan qabiilkan ku dhalati qabiilko kalena gab sida badana Soomaalida hatta faniina tanyeeyo qabiilka la in xaqliyaas meeshii qabiilkii walaha ku saari min xaqliyaaso taas dartiye iyadin sheebay awal hatta sidii hatta la helay la aragay madan aragay baraarujintii walaagi hoob la helay may fahmay inay balaamayt qabiilkiisa aan ku dheeray hatta madan sidii hatta la baraarujinay mas'uuliyiska baraarujiyay iska odayaalka nafti istuseen may ku madaha ani madan balaamayt lagu iibgeliyo qabiilkii ku dhalati qabiilkii aan ku dhalanay qaban dadka dhan aragay qofkii noolo anti wal taraw la aragay inay la iibgeliyo hatta saasar ka talay ooyu walqaba dadka may buu laf dhabarka qoysku marka dhibka shaani inay balaanta may buu gidaalan diida malka buraarugsunayn malka barnayn mo dadasnayn maadaama may buu saas jirti hatta madan may la ogaaday inay may buu balaanta iyo nafti wal qobdo korto hormar sheeno korto hatta la buraarugi macnaha liid kala majiro mo dadasnayn saas ka nagay Abdi Ali Ibrahim TV-ga raadiyaha Koonfur Galbeed magaalada Xudur ee harunta gobolka Bako.